horena waa idinku sheegay haddana waa idinku elinayaa godobtayda gelin lama haysan karo maalin gelinkeed lama haysan karo xalay baan idiin sheegay muuqaalkayga aan ku duubay channelkayga Cabaas Madani waa dhegeysateen ragga reer SC Khaatumo ee lagu afduubtay meesha la yiraahdo bohol haddaan 24 saacadood lagu soo deyn wixii ka dhashay mas'uuliyadda ma qaadayo arrintaasi waa laga jawaabay waxa laga jawaabay baan rabaa update-keeda siiyo reer SC Khaatumo caawa waa la hadlayaa waa la talinayaa fariimaan u gudbinayaa inay isgaarsiiyaan laba qodob barnaamij ku saabsan yahay wixii dhacay iyo wixii arrinta laga jawaabay iyo baaqayga ugu dambeeya arrinta muuqaalka isgaarsiiya meel dheer ka tuura geel caruur qaaday ma foga saddex nin oo marka mid baaba isagu ka soo haray tiradu shalay waan khalday xalay barnaamijka ku khalday laba ahaay saddex ahaay laakiin mid baa dib u soo laabtay laba gacanta ku dhigeen oo ka tirsan muwaadiniinta reer SC Khaatumo niman geel jirayaala oo socota ah oo markaasi baadi doonayay xoolo ka lumay ayaa ay qabteen ciidanka jabhadda argagixisada sanam ee ku sugnaa markaa bohol sidaa daraadeed dadka bohol iyo degan xudun ila foweyn dhulkaas waxaa ka dhaxaysay hal arin oo waxa weey wanaagsan arintaas waxay ahayd in baadida la isu celiyo xoolaha baadida la isu celiyo dadka socotada ah ee diyeysan in la isu celiyo intaas horta naruuraha kaliya ay haysteen intaas ay ahayd waxa moodaa Cabdiraxmaan Cirro oo dadku yaqaaneen inuu yahay nin nabadeed inuu ka bilaabay reerkiisii jifidiisii hoose ee habaryooniisi inuu xaabada ku shubo waxay arki jireen Muuse Bixi oo xaawada ku shubo habar jeclay iyo garaxajis iyo Isaaq Yareere Guraangofkaaye wali taariikhda markii ugu horeysay reerkiisu kaga bilaabay inuu xaawada ku shubo waxaana taa daliil u ah ragga muwaadiniinta ee reer SC Khaatumo ee socotada ahaa ee markaa u galay bohol markii gacanta ku dhigeen hore waa u dhici jirtay waa la isu celin jiray xudun bay imaan jireen la fogeynay imaan jireen oo dhulka SC Khaatumo imaan jireen waa loo celin jiray laakiin taa waxa ka gudbay nidaamka hadda iyo jabhadda argagixisada sanam Cirro wuxuuna abaabulay oo qorsheeyay inuu halkaas colaada ka abuuro oo dadkaasi barakiciyo ciidamadiisa gacanta ku dhigay dadkii deegaanka waxa la sheegay inay isku dayeen hor istaagaan laakiin taasi suurtagal weyday oo nimanka burco loo gudbiyay mar haddii burco loo gudbiyo way maxaabiista hore lagu daray way ilaa raggu waxay naga hayaan reer SC Khaatumo ku dhawaad 547 xubnood oo ka tirsan maxaabiistii askartii ka dagaalamayay SC Khaatumo sida daraadeed annaguna waxa way kuwan aan tirada ku buuxsanaa labada nin war soo daaya lagu fariimo waaweyn baa loo diray dhagaha ka furaysteen anaga maxaan lagu yaqaanaa markaa orodka hore iyo doorka waa lagu yaqaan cararka hore iyo doorka waa lagu yaqaan annagana daanjabiska waana lagu yaqaanaa inaan idbino raggaasi markaa waxay noqotay afduub bay noqotay in la afduubtay oo burco la geystay la yiri nidaam baa la wareegay oo asnaba riwaayad adeer halka man nidaam oo ka jira dawlad la yiraahdo quwad weyn oo SC Khaatumo la yiraahdo ayaa ka jirta maxaysatada iyo baadida kuwa waxa weey hadii la kuuraya diyeysan iyo kuwa socotada ah ee xudun lagu qaban jiray iyo meesha la yiraahdo la foweyn anagu waa oran karnay dawlad baa haysatay SC Khaatumo anagu soo miir qabnaa dadkaygu waa miir qabaan xaqiiqadana waxa weey kama leexdaan way arinta marka afduubka shalay dhacay 24 saacadood baa loo qabtay waa ka soo jawaab waayeen haddaba ilaahay fadligii mid kamid ah guutooyinka sida gaarka u tababaran ee ciidanka daraawiishta dawladda SC Khaatumo ee gobolka Sanaag waxay xalay saqdhaxay gacanta ku dhigeen afar kamid ah kooxaha argagixisada nabadiidka ee u dhashay beesha Isaaq ay gacanta ku dhigeen iyo gaadiidkii ay wateen afartoodiba gacanta dawladda SC Khaatumo ayay soo galeen waxay wadeen oo ay sahminayeen mid kamid ah fariisamaha ay ku sugan yihiin guutooyinka sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan guuto afxakame ayaa guutadaas ayaa gacanta ku soo dhigtay gacanta ayaa lagu hayaa waxa weey taa bedelkeedna waxa booskoodii ay loo hayaa labadii xubnood ee afduubteen ayaa loo hayaa waaye yaa iga hayn kara markaa waaye ma la iga hayn karaa dirbado macali sheekadooda waa laba iyo afar wey ya gaarigoodiiba gacanta ayay SC Khaatumo ayay ku jiraan
afduubkuna waa inoo bilowday afduubku ila dhaqan xumada idinkaa horseeday oo bilaabay afduubku waa soconayaa cid idinka fataxona ma jirto weliba kuwa bohol degan waxaan leenahay nabadda idinkaa isku carcaariyey kii aad doorateen aan lahaydeen isku habareeris banaa wakaa maanta doonayay sida habar jeclo ay maxaysatada u noqotay inay idinkuna u noqotaan oo bohol lagu kala dareero xanuunkay leedahay maxaysato habar jecla laga wareysan karaa haddii cidi dayac ka dharagtay oo ay waxa weeye ay bayraha noqotay habar jeclaa xanuunka garanaysa oo aad ka wareysan kartaan habareerisay marka maanta inta gacanta ugu jirta labadii afduubateen soo afar leedu kuma bedelin afar kamida kooxaha argagixiso oo beesha iyo dooray asam ayaa gacanta ciidankiisi qaatumo soo galay xalay gacantana lagu hayaa maxaa ka faa'iiday maxaa dheeftay hadduu leeyahay li ciro waan soo celin anaha lay soo celiyo waa idin sheegay nimanka haddaan la xanuujin oo madax laga garaacin iyo doorma miirsado xalay markaan idinku lahaa 24 saacadood baan idin qabta dayal iyo dhalanteed baa haysata Soomaa dhageyst waa kan xalay fariintan xalay diray way nimankaas muwaadiniinta reer si khaatumo haddaad soo deen weydaan oo aad deegaanka ku soo celin weydaan oo sida u afduubataan ogaada idinkana xoolihiina iyo socotadiina saasa loo qabanaya la soo celin weydaan 24 saacadood gudahood ogaada wixii ficilada halkaas ka dhasha idinka wax mas'uuliyadooda qaaday ogaada baadida waraan soo celino war socotadaan soo celino waraan colaadana waa aqaana nabadana waa aqaana dadkaas inay nabad ku wada noolaadaan waa jecla laakiin dadkayga nabad been abuura oo afka baarkiisa dadkayga inaan ku baraarujiyo waa habeenka xalatiga weeye haye fariinteeda waqti laga soo jawaabay kalmadda markaan la dheer ma lahayn waxa iga dambeeyaan ogaa jamaahiirtan ogaa ciidamadan ogaa qalasyadan ogaa oo aan ku kalsoonahay oo aan halkan iyaga wakiil ugu ah war soo wakiiladu kuma yihiin soo qala qalasyada military daawanaya soo wakiiladu kuma yihiin iyaga wakiil ka ah xalay warankan bixiyay war soo celiyaan ku waa laga jawaabi waayo burca waxa weey loo dhigay hadda ogaada afar baa loogu jawaabay maantana gacanta lagu hayo haddii hal farda taagtan hal far laga far idoro hal farda taagtan shanta farood waa taaganaa shanta farood waa taaganaa anagu dad gobaan nahay gobnimada kama leexano qof maskiin oo socota in la qabto ama la afduubto xeerka dagaalka ma ah laakiin idinka horseed idinka bilaabay imisa maxaysata leedii sii daay imisa socota leedii sii daay maanta kuwii idinka idinku soo khaldamay ee diyoobay soo barnaamijka dhigin Soomaalida oran SC qaatumo huwa beehaayeen maanta aniga afar baa gacanta igu jiray taa hubsado qaata cid aan uga daalan lahayn hal arko cid idinka fataxna ma jirto qodobka waxaan ku soo gabagabeynayaa waan u hambalyeynaya ciidanka SC qaatumo ee gobolka Sanaag geesiyada aanu ku faano ku dhaadano waxa leenahay shaqo waan bad qabateen goob arleysiidina wali ceeb kalamadii tigin waxa la guulaysto feejignaada diyaar garooba waxa weeye markasta u toghaya dhagar kasta oo cadawga ay abaabulayaan special gobolka Sanaag maan leeyahay waa ku kalsoonahay intaas waa intaas qodobka ugu dambeeyaan ku soo gabagabeeyay waxa weeye waxaan rabaa caawan reer SC qaatumo in la hadlo beeraha reer SC qaatumo ama dhul bahanta dheh ama faqashini dheh ama madhibaan dheh ama kaski qabad dheh ama gari koomba dheh waxaan leeyahay diyaar garooba hala diyaar garoobo dunidu xaalad kale galaysaa oo jifi hubka loo iibiyo reeraha wali sacbuleeda ee aan wali hub badan haysan inay ishubeeyaan waa in loo diyaar garoobaa dagaal aan ku difaacanayno cirdigeena sharafteena dhulkeena cadowgeenu wuxuu usoo tabaabashoosanaya waa inaga weeye inaguna waa inaynu diyaar garowno weeye ninkii awood leh oo xoog leh baa Soomaaliya u talinaya reeraha aan wali qoryaha lahayn ama qoryuhu ku yar yahay ma raba inaan meeshin garay laakiin reer walba oo isog yahay cid walba iyada is og hubka iibso oo hubka soo kordhiso oo hubka waaweyn soo kordhiso oo kuwa yar badso oo diyaar garow
heeraha weli aan jiidaha ciidankooda joogin oo alle ta wararka Abbas Madani aan leeyahay ku soo qaadan jiidas geey heerka reerasi qaatuma ka tirsan aan jiida ciidan u joogin maxay tahay waa ceeb weey ama sanaaga joogto ama sool ha joogto ama cayn ha joogto si guud baan la hadlayaa reerasi qaatuma reerka aan reerkooda jiida joogin waxa way intaan wararka lagu soo qaadan oo aan reerkaaga la ceebeen babliga lagu keenin jiida isgee heerka hubka yar hubka badso heerka hubka badan adna sii badso ha loo diyaar garoobo waxaan la dagaalamana waxa weeye huwan ishuwan marka waa inaan u diyaar garoobno weyn talooyin badan baan wax u soo jeediyey maamulkeena iyo dadka marka madaxda inoo ah waxaan u sheegay waxa loo baahan yahay dalka in tababaro badan la sameeyo dadka dhalinyarada boqolkiiba 30 in waxa weeye tababaro loo diro 2 sano qofku markuu secondary-ga dhameeyo 1 sano oo tababara way yayna ku xusaatamay wax hoose sanadada soo socota wayna ku xusaatanaa 20 sano kadib dadkeena weyn la baraarujiyo oo difaac u nafsi loo tababaro weeye manhajka lagu daro shirkad waxa uu xisad wadaniyada dadka cadowgooda la barayo waa aragtiyaha aan madaxda hadda joogta aan kula talaynay insha Allah laakiin waxaan rajaynayaa dadkeena inay taa ay fahmaan anyway waxaan ku soo gabagabanayaa hal uu diyaar garoobo yaan la isdhigan war halkii kala jaamac ayaa layna gaadi hal diyaar garoobo insha Allah taala gacanna horumarka iyo guusha iyo gobonnimada iyo isku tashiga baynu ku wadanaa gacanna difaaca dalkeena iyo deegaankeena insha Allah taala qurbo joogto waxaan leeyahay hawl kama daalayaalo wali waa hoogay shuba shilinka shuba guul ma raadinaysa martaan aad farxadid guusha raadinaysid jeebkaaga ku jirtaa qaaraan ka bixi qaaraan diidow